يقولي هذا كسجرت ولا ليال ماشي لو تكون هاي لو بنيا ولا ليال مركا ساعة waxay leedahay walaalayaal soo caawiya inta aan leey gudbin dar ilaahay ii soo caawiya assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kusoo dhawaada youtube-ka iyo facebookgeena xaqiiqside waa anigoo doctor royal ah haddii ay tahay markii ugu horeysay oo muuqaalkeena ku soo gaaro share garay oo comment garay subscribe kana saaro commentina ka dhib waan mahadsantahay waxaan rabnaa in aan maanta tan idiin soo gudbino muuqaal argagax badan dhaliyay gabar Soomaaliyeed oo u afduuban manaxayaasha Liibiya magafe ayaa gabar Soomaaliyeed u haysta lacag gaaraysa 14,000 oo dollarka Mareykanka oo waliba waxa uu sii dheer jirdil waxa kale oo macquul ah in kufsi loo geystana waa dhici kartaa laakiin Allahu a'lam laakiin sida ka muuqata gabadha kan muuqaalkeedu waxa weey argagax badan buu leeyahay gabadhan ayaa muddo aad u dheer ku xiran oo waxay leedahay hooyo iyo aabba ma haysto midaas weeye midda caloosha xanuujisay gabadhan ayaa ummadda islaamka ah gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed ka codsanaysa in la caawiyo bal aan isla daawano inta aanan mataqaanaa ka hadlin aan isla daawano كليش بقول أحد يقولي هذا كسجرت ولا ليال ماشي لو تكون هاي لو بنيا ولا ليال مركا ساعة waxay leedahay walaalayaal soo caawiya inta aan leey gudbin dar ilaahay ii soo caawiya leedahay waa gabar Soomaaliyeed aad baan uga naxay sida ay u durufaysan tahay sida mataqaanaa jirdilka uga muuqdo sida aan mataqaanaa ii sheeg maxaa la yiraahdaa caafimaad darada ka muuqata gabadha walaasheena waxa saa u galaya waa arxalaawayaasha manaxayaasha Liibiyaanka weey gabadhaas waa ooysay qalbigayna xanuujisay dhamaanteeda balaas la daawano muuqaalka kan waxay leedahay dhowr iyo 10 sano ku jira hooyo iyo aabba malihii leedahay wallahi waxa weey wax aad looga xumaado waay caloosha ay xanuuntay qalbiga ay xanuunaya dadka Soomaaliyeed ayaa meel kasta oo adduunyada ah ku dhibaataysan oo waliba meelaha ugu xun waxa weey Liibiya iyo Saxaraha iyo waa meelaha ugu dhibaatada badan waxaan rabnaa muuqaalka kan inaad u share gareysid gabadhaas oo aad caawisid gabar Soomaaliyeed weeye waa walaashayada weeye waa gabadheena weeye muuqaalka u share garay haddii aadan wax kale u tari karin si oo dad badan u gaaro waxa macquul ah dad badan oo walaalo ah inay arkaan oo ay caawiyaan dhici karto gabadha walaasheena walaalayaal isku naxariisano gabadha kan muuqaalka u sii share garay oo waxa macquul ah in hal qof oo xoolo haysta oo lacagtaas oo dhan shubi kara inuu arkaa dhici karta u share garay adigana ajir iyo xasanaad baa ka helaysaa sheertan waa cibaado ku cibaadeyso qof allaala qofkii wax u tiri karan gabadhaha u taro waa haday share tahay iyo haday mataqaanaa xoolo aasiisaba ay tahay intaba gabadha walaasheena aan u gargaarno oo aan caawino oo aan ka soo furdaamino manaxayaasha Liibiyaanka ah arxalaawayaasha ah sidoo kale waxaan rabaa inaan meesha digniin uga diro dhalinyarada Soomaaliyeed oo soo tahriibaysa ilma adeer gacaliya ku quus qaata waxa dhacaya ilma adeeryaal gacaliya ku quus qaata wax nolol ah oo idinka soo horeeyo wallahi si jirin meel laxana waa ku baabaysiin hadaa soo gudubtaana wax badan oo dhaqdhaqaaqa ma jiraan inta qadada ah ee bakaaraha taala baa intana taala taada bakaaraha iska imaaso taada Hargeysa iska imaaso taada Jigjiga iska imaaso taada Gaarisa iska imaaso taada Jabuuti iska imaaso walaalo ha soo tahriibin oo naftaada riska ha gelin oo ha is dhibaateyn aad baan u qiireysanahay shucuurteedana lama soo koobi karo aad bay u kacsan tahay intaan muuqaalka xukulmi doono waxaan kaga tageynaa sida iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh.